بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي ونكسر خيارات قيمة بدنا ودا نقل صعوتاي ميل كسدات جوجتان waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo barnaamijka Kasmaal oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliland kana dhageysataan raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland dabcan barnaamijka Kasmaal waxa ku tartamayaal kala duwan kuwaas oo aan ku tartana lacagdan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland waxaan ku soo gudbinaa qof kasta oo ka qayb qaadanaya in uu markaasi garto ilaa 22 su'aalood kuwaas oo ugu talagalay in tartamayaasha dhamaantood qof kastaba uu ku tartamo 22 su'aalood halka uu ka gaaro isagoo mari doona jaraajartaasi dheer oo hadii uu garto 10 xabo oo kamid ah su'aalaha uu qaadan doono lacag 250,000 oo shilinka Soomaaliland waxa uu qofku mari doona jaraajartaasi dheer hadii uu garto 10 su'aalood oo kamid ah waxa uu qaadan doonaa lacag dhan 250,000 oo shilinka Soomaaliland hadii uu markaasi garto 15 su'aaloodna waxa ay noqon doontaa 750,000 oo shilinka Soomaaliland hadii uu garto 20 su'aaloodna waa milyan iyo badh ama milyan iyo 500 hal su'aal ayaa jirto 22aad oo tuu dambaysa taasi oo milyan iyo badh 3 milyan ayay 22 su'aalood noqon doonaan waxaan iyagana aad ugu mahadcelinayaa khiyaarta igula sugan stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliland oo iyaguna barnaamijkan qaybka dabcan tartamo kasta oo ka qayb galayana caawin doona oo iyagana waqtigooda qaaliga aad ugu mahadcelinayo daawadayaal meel kasta aad joogtaan idinku soo dhawaada barnaamijka Kasmaal waagaag daawadayaal mar kale ayaan kulanti wanaagsan idin leeyahay waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha koowaad ee barnaamijka Kasmaal كقيب قاتاك وهذا برنامج كسمال وخالد عمر محمد خالد عمر محمد الله صعبيه تليفون سحور مقال صافيو أسألوا بالله السلام عليكم خالد عمر محمد عليكم السلام كسو دو برنامج كسمال خالد واحد وربحيني قص الساعة إن أرضي تهاي الدار أرضي هناك دقيقة يعني يدا ودياشة وحكي كلا حق ديراد هذا نسيكرت بسم الله أولا لها يا مهضلة الحمد لله رسولك ساي أماني شرف مولى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مقعي وساء روشك تيانا إدني الشيء وخالد بن محمد وحانا هاي أرضي لكتجع مدى هرقيساء صح كارهان فيلكا مفكلكا دقالها سند كودن بيكو جيرا إن شاء الله خالد heerkaaga jaamacad waxa doonatay inaad dhaqaalaha barato maxaa ku xulatay inaad dhaqaalaha barato runtii su'aasha dad badan way weydiiyeen Soomaaliduna dhaqaalaha marka la sheego waxa ay in badan ka hadlaan su'aalaha badan ee la weydiiyay waxa weeye wadanka ma dhaqaalaha yeelan lagu raahdaa laakiin dhaqaaluhu ma aha shilmaanta la arkana ma aha dhaqaalaha wadanku waa policy iyo siyaasado wadanku u baahan yahay isla markaana wax ban ka tareeya wadankeena hadii dhaqaalahana badan soo baxaan taasana ku doortay inta kobcinta dadka ka qaadaysa sidada barnaamijka Soomaaliland daawatiyan kale si fiican macluumaadkiisa waa haysa waan hayaa si fiican daba qaab baqaalay inuu eegana jaraanshada dheer bayna hadii la yiraahdo mari doona waxaad aad u xasuusnaataa laba jeer naamin laba ka toori doona laba jeer dadweynuhu caawin doona Khalid waa ku bilaabi doona bismillaah su'aasha koowaad waxay ku oranaysaa khadiija da'deedu waxay ahayd kolkii nabigu sallallahu alayhi wa sallam guursaday khadiija da'deedu waxay ahayd kolkii nabigu sallallahu alayhi wa sallam guursaday ba 40 jir ta 35 jir ja 30 jir ha 25 jir bismillaah su'aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waxay noqonaysaa ba oo 40 jira ba oo 40 jira khaalidina laba ka tuuriyo mana dadweynaha inuu harsiin way la socda xabada waa hubtaa xabadaha waa hagaag daawadayaal ba oo 40 jira ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su'aashu sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha labaad waxay ku oranaysaa
calankani waa calanka waddanka calankani waa calanka waddanka ba tunuusiya ta yaman ja turkiga xa masar su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waxay noqonaysaa ja oo turkiya ja oo turkiya qolada idaacaddan igala socotana waa casaan weeye xidig xidig iyo bishii ayaa ku taalla marka barta kaga taalla inaan laba kaa tuuriya dadweynena weli waynu harsan yihin si fiican waa hagaag ja oo turkiya ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay saddex khaalid su-aasha saddexaad maayirkii diyaaradda saaray faras magaalaha hargeysa waxa uu ahaa maayirkii diyaaradda saaray faras magaalaha hargeysa waxa uu ahaa ba yuusuf warsame ta xuseen maxamuud ja cabdiraxmaan maxamuud xa cawl cilmi su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waxay noqonaysaa xa cawl cilmi cabdan xa cawl cilmi cabdallah saddex baynu maranaa ku adkaysanaysa iyadoo saaran baan markii la saaray iyadoo saaran baan arkay laakiin xogtaada taariikhiyan waa hagaag xa cawl cilmi cabdallah ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay cawl cilmi cabdallahna aad baanu salaamanaa meel taariikhu ka tegay dabcan oo hadduuna daawanaya baanu salaamanaa waxaan xusanaya allah caafiya insha allah su-aasha afraad waxay ku odhanaysaa gobayga yidhaahdaa ragow kibir waa lagu kufaa kaa ha la ogaado waxa tiriyey abwaanba dhoodaan ta ismaaciil mire ja cali dhuux xa salaan carabey jawaabtaasi haddaan isku dayo waxa weeye ta ismaaciil mire ta oo ismaaciil mire ah afar baynu maranaa weli dadweynena waynu harhsayniina laba kaato ku adkaysanaysaa ta oo ismaaciil mira ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha shanaad suuradda loo yaqaano caruuska qur-aanku waa suuradda loo yaqaano caruuska qur-aanku waa ba suuratu cama ta suuratu nisaa ja suuratu raxmaan xa midna su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa ja arraxmaan ja oo arraxmaana meel xasaasi kale markii waynu taaganahay dadweynihii hawliya dhanna waynu harhsan yihin yaa khaalid go-aankaaga u dambeeya suuradda loo yaqaano caruuska qur-aanku waa ja arraxmaan ja suuratu raxmaan suuratu arraxmaan ku adkaysanaysaa waa hagaag daawadayaal jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay khaalid cumar lix baynu gaadhnay bisha guga ugu horeysaa waa bisha guga ugu horeysaa waa ba seer ma weydo ta dirir sagaaro ja cawl xa midna su-aasha dadweynaha khaalid dadweynaha su-aasha aynu dadweynaha su-aasha u dhiibana waa hagaag daawadayaal meel xasaasi aanu marnaa lix baanu dabcan taagannahay waa markii koowaad aynu idiin baahano aada uga fursado badanna waynu arsan yihiin markaana caawisaan isku daya su-aashu waxay idin odhanaysaa bisha guga ugu horeysaa waa bisha guga ugu horeysaa waa ba sayr ma weydo ta dirir sagaaro ja cawl xa midna imise qof ayaa le waa ba oo waxa weeyaan sayr ma weydo imise qof ayaa le waa ta oo waa dirir sagaaro imise qof ayaa le waa ja waa cawl imise qof ayaa le waa xa midna waagagaan isku soo noqono ilaa shan qof oo ka mid waxaynu gu dhahay waa dirir sagaaro ana qofna waa midna baynu gu yidhi badina waa ka aamuseeno intay garanayn bay dhaaftay kulle xaasidnimo kama aha
oona meel xasaasiya runtii aada uga fiirso laba qofna waxay nagu yidhahaan waa sayr ma weydo ba'da ilaa 5 qofna waxay nagu yidhahaan waa dir sagaalo hal qofna waa midna bay nagu yidhi hal qofna waxay nagu yidhi waa cawl waa isku meeraysat asoo laba ka mid ah laba ka mid ah ayaan kaa saari doonaa meel adaga iyo gashi si aan usii xaqiijino ba oo seer ma weyda iyo xa oo midna isku saaran ba sayr ma weydo waa hagaag daawadayaal ba oo sayr ma weyda aynu wadeegi doonaa bisha guga ugu horeysaa waa ba sayr ma weydo jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay meel xasaasiyan ka soo saarna su-aasha toddobaad waxay ku odhanaysaa cilmi boodhari wuxuu hodan jeclaa waxa uu hodan jeclaa ba ilaa 6 sannadood ta 8 sannadood ja 10 sannadood xa 12 sannadood waryaakhaan cilmi boodhari horta si fiican baad u garanaysaa ya sheega ku maqashay marka waa bii jacaylka weeyaan ninkani father of the love baa la yidhaha qaarkood sooma ninkani waa bii jacaylka laba ka mida ayaan kaa saari doonaa waxaa isku soo hadhay cilmi boodhari waxa uu hodan jeclaa ja oo 10 sannadooda iyo xa oo 12 sannadooda ja oo 10 sannadooda waa hagaag daawadayaal jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay khaalid cumar 8 ayaynu soo gaadhnay 8 su-aasha 8aad waxayna odhanaysaa roob magaalo ku hooray ramaa soo bixin maaye ee laamiguu ku raftaa waxaa tiriyey roob magaalo ku hooray ramaa soo bixin maayo ee laamiduu ku raftaa waxaa tiriyey ba muuse cali faruur ta cabdilaahi cabdi shube ja dhoodaan xa gaariye roob magaalo ku hooray ramaa soo bixin maayo ee laamiguu ku raftaa wada dhiidhuunbu kaa dhigayaa waddada markaad ag maraysid ba ogta hal maroo dadweynaha ina harsaman malaynaya yaanu dhibin waa hagaag daawadayaal aada ugu fiirsada meel xasaasi aanu maranaa 8 baanu maranaa markii dhaweydna aada noomeydaan caawina aada ugu fiirsada haddii alla yidhaaho oo dabcan qofkii aan hubina aska aamusa saasaa khayr roon su-aashu waxayda odhanaysaa roob magaalo ku hooray ramaa soo bixin maayo ee laamiguu ku raftaa waxaa tiriyey ba muuse cali faruurta cabdilaahi cabdi shube ja dhoodaan xa gaariye imise qof ayaa le waxaa tiriyey ba muuse cali faruur imise qof ayaa le ta waxaa tiriyey cabdilaahi cabdi shube aada ugu fiirso imise qof ayaa le ta dhoodaan imise qof ayaa le xa gaariye aan isku soo noqono badi dadkaasi waxay ugu dhahaan ta oo cabdilaahi cabdi shubaa laba qofna waxay ugu dhahaan muuse cali faruur maadaama dadka u dhibanay tayo badan ma raacno haddii xabadayna saxaan markii hore waan ka dhaafna aada bamaasay dayna qaldaana aada bamaasiinta garanaynu ma dhaafta ta oo cabdilaahi cabdi shubaa ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha 9aad 9 ayaynu soo gaadhnay
hogaamiyihii muslimiinta ee sanadna duulimaa tegi jiray sanadna xajka qaban jiray waa ba salaaxuddiin alayuubi ta khaalid bin waliid ja qaacqaac xa haaruun alrashiid su-aasha jawaabtaatan isku dayo waa ba salaaxuddiin alayuubi salaaxuddiin alayuubi sagaal ayaynu marnaa dadweynina way naga dhammaadeen inaan laba kaa turaano way naga dhammaadeen aada ugu fiirso sagaal baynu marnaa khaalidna mar sanadna uu soo xajki jiray baan uli janadna u duulimaan tegi jiray marna jihaad buu ahaa marna xaajuun buu ahaa khaalid isagu wuu xaji jiray haaruun arashiid isagu wuxuu ahaa khaliif qaaqa waqtigii rasuulku noolaa khaalid cumar go-aan ka gaar salaaxuddiin alayuubi ba oo salaaxuddiin alayuubi ku adkaysanaysaa hogaamiyihii muslimiinta ee sanadna duuli jiray sanadna xajka qaban jiray waa ba salaaxuddiin alayuubi go-aankaaga u dambeeya waa hagaag daawadayaal jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi qalad ayay ku tahay waa haaruun alrashiid aada loogu sacadbiyo khaalid waa hagaag daawadayaal waxaan u yeedhi doonaa ka qayb qaataha labaad ee barnaamijka ka qayb qaataha labaad ee barnaamijku waa farxaan cawil cabdilaahi farxaan cawil cabdilaahi loo sacbiyo asalaamu calaykum farxaan cawil cabdilaahi عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawo farxaan barnaamijka samaada farxaan waxaa tafaasiil iga siisaa inaad arday tahay inaad hawl kale haysid halkaad degantahay aniga daawadaasha inta macluumaad na siin karta بسم الله. إن عبساقو منو واحد دقنا في مقالة سلاحي. ما شاء الله وإحنا معنا خليقة سيرة دقنا سلاحي. ما شاء الله معنا فرحان برنامج كان أنا دعوتيا كذا والله برنامج كذا دعوتي معنا إن ما وحبرشلون ما سلاح لو تكتم صدق أنا هم بد دقنت هل كان لابد باني أنا بدواتي إن marka waa lagu soo wada barnaamijka ku guuleystaa lagu guuli saaka marka salax libaad nooga timi xalay ka timi laakiin allahumma salli ala muhammad salax la yaa hawli oo kale ahaayeen marka macallin farxaan sheekh farxaan oo lagu dhaano malayna hada ma sha Allah shaqada waxaad aad u xasuusnaataa marka hadii la yiraahdo laba jeer inaan min laba ka tuuri doono laba jeerna dadweynaha caawin doonaan bismillaah waan ku bilaabi doonaa su'aasha koowaad waxayna oranaysaa nebigii aan hooyo iyo aabbo toona lahayni waxa uu ahaa nebigii aan hooyada iyo aabbaha toona lahayni waa ba nebi ciise calayhi salaam ta nebi muuse calayhi salaam ja nebi aadam calayhi salaam xa nebi saalax calayhi salaam بسم الله. سؤال جوابتي هذا نسكت ده وجاء نبي آدم عليه السلام. ja oo nebiyullaahi aadam ku adkaysanaysa ها. waa hagaag daawadayaal ja oo nebi aadam ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa ninka haweenka badan waxaa la yidhaa ninka haweenka badan waxaa la yidhaa ba godadle ta sheekh ja bilis shiriye xa midna waliga farxaan sheekhyadu way yar haween badan yihiin soo maa بدي لكن ما قلنا بسم الله سؤال جوابتي ده با قدر ba oo godadlaa ku adkaysanaysaa ها. waa hagaag daawadayaal ba oo godadla ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay yaa macallin farxaan saddex ayaan soo gaarnay su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa calankan waxa leh waddanka calankan waxa leh waddanka ba
sinjibaar ta gaana ja mosambique xa koonfur africa su-aashu waxay odhanaysaa calankan waxa le wadanka ba sinjibaar ta gaana ja mosambique xa koonfur africa imise qof ayaa le waa ba sinjibaar imise qof ayaa le waa ta gaana imise qof ayaa le waa ja mosambique imise qof ayaa le waa xa koonfur africa aada uga fiirsan macal mustafa aad baa mahadsantihin farxaan cali farxaan dadkaas socod aqlabiyada waxay nagu yidhahdeen waa xa oo waa calanka koonfur africa ku raacna xaadan ku raacna waa agaag daawadayaal xa oo koonfur africa ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay aada umaasay su-aasha saddexaad afaraad su-aasha afaraad kaba cad waxay ahaayeen ba dhallinyaradii iskuullada ta dhallinyaro xaragoota ja dhallinyaro qurba jooga xa dhallinyaro ciyaartoya macalin farxaan kaba cadcad bay soo xidhan jireen maanu malaynayaa laakiin maynaan soo gaadhin de inagu laba ka mida ayaa kaa saari doona waxaa isku soo hadhay ta dhallinyaro xaragoota iyo ja dhallinyaro qurba jooga ja-dan doonanaa dhalinyaro qurba jooga ja dhallinyaro qurba jooga malaa qoladan qurba joog waxay doonaan bay soo xidhaan dee qadh bay soo xidhaanba qaarkood kaba waaweyn oo qadha wakti hore ahaydo aada uga fiirsa markaa ta oo dhallinyaro xaragoota waxaa laga yaaba markay kaba cadcad xidhan yihiin inay xaragadii u dambeysay ku jiraanoo maalinta ta oo dhallinyaro xaragoota ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha shanaad waxaynu odhanaysaa khaliifkii ugu horreeyey ee magaciisa lagu lamaaneeyey allah waxa uu ahaa khaliifkii ugu horreeyey ee magaciisa lagu lamaaneeyey ama lagu daray allah waxa uu ahaa ba cumar binu khadaab ta abibakr sidiiq ja almuctasim billaah xa xajaaj binu yuusuf bismillah su-aasha shabateedu waxay noqonaysaa ja-o almuctasim billaah almuctasim billaah mar dadweynena laba inaga tuuraan ino harsatay malaha bal horta markaa tamaynu bisi loo qaban waa hagaag ja oo almuctasim billaah jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha lixaad waxay ku odhanaysaa bisha dayr ugu horeysaa waa bisha dayr ugu horeysaa waa ba dayr halalood ta dayr habis ja dambarsame xa midna mar dadweynaha iyo waxaynoo harsan maraynaa laba kaa tuuraa dadweynahaanu dhiibna waa hagaag daawadayaal inaad macaawisaan baanu baahanay anigiyo farxaan cawilba waxaanu maraynaa 6 waxay odhanaysaa su-aashu bisha dayr ugu horeysaa waa bisha dayr ugu horeysaa waa ba dayr halalood ta dayr habis ja dambarsame xa midna imise qof ayaa le waa ba dayr halalood imise qof ayaa le waa ta dayr habis imise qof ayaa le waa ja dambarsame imise qof ayaa le waa xa midna waa hagaag waxaan isku soo noqonno
macallin farxaan ilaa 9 qof oo ka mid waxaynu leeyahay waa dambarsame oo ja'da ah waxoodu waa soo jeedin badina way ka aamuseen marka xaasidnimo kama xasideen macallinka qaldina intaas soo dhawto iskuulkii ugu tagtaan mid dhamaantii maxaad noo qaldiseen laakiin waa soo jeedin waxoodu inaan laba ka tuurna wanaagsanaa ku sii xaqiijin karayno dambarsamaasan ku raacayna jaabaan ku raacna aad ugu fiirso mar kalenu haysanaa inaan laba ka mida ka saarno dabeetana inuu go-aan ka gaadhno labadana ka tuur dhamaadaan labadana ka tuur laba ka mida ayaan ka saari doonaa su-aasha badi u codeeyeen waa inadays ba oo dayr halalooda iyo xa oo midna isku soo hadheen xadan dayrna midna waa ba oo dayr halalood iyo xa oo midna xadan doorna go-aankaaga u dambeeya macalin farxaan bisha dayr ugu horeysaa waa ba dayr halalood iyo xa oo midna bal ba'dan ku egna dayr halalooda ba oo dayr halalooda go-aankaaga u dambeeya waa hagaag daawadayaal ba oo dayr halalooda ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay farxaan cawl salaxlayna aad baa looga garaacaya moogto si fiican baa inoola socdaa su-aasha 7 masaajidka umawiyiinta ee dimashq waxaa dhisay masaajidka umawiyiinta ee dimashq waxaa dhisay ba abibakr ta xamse ja cismaan binu cafaan xa waliid binu cabdilmalik بسم الله سؤاشا هو حاء وليد بن عبد الملك xa oo waliid binu cabdimalik go-aankaaga u dambeeya حاء dadweyne waa inaga dhamaadeen laba tuurnaan waa inaga dhamaatay xa oo waliid binu cabdilmalik ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay 8 aynu soo dheerayno maclimaad xasaasi ay soo gaarnay luuqadda carabiga waxaa loo qoraa luuqadda carabiga waxaa loo qoraa ba 2 qaab ama nooc ta 3 ja 4 xa 5 بسم الله وباء والله بقابة ba oo 2 qaaba meel xasaasiyaynu marna ana farxaan cawil luuqadda carabiga waxaa loo qoraa ba 2 qaab ta 3 qaab ama nooc ja 4 nooc xa 5 nooc باء والله بنا ba oo 2 nooca aada ugu fiirsa farxaan luuqadda carabiga waxaa loo qoraa ba oo 2 nooca go-aankaaga u dambeeya بل قاعدين وريقنا صدحنا ta oo 3 nooca luuqadda carabiga waxaa loo qoraa ta oo 3 nooca go-aankaaga u dambeeya waa hagaag daawayaal ta oo 3 nooca ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha 9 9 baynu soo gaarnay 7 samo ta ugu sarreysa waxaa la yidhahaa ba maacuun ta musayna ja rafiica xa midna توصرز وحاء ومدنا xa oo midna مدنا mustaf aada uga fiirso 7 samo magacyo kale leeyihin بعدين تن samo ta ugu sarreysa sama dunya ta ugu sarreysa dunya soma
dee xagga hoose inoo sameyna samaa dunya waa tawo hoosa korba u sii soconaysa marka la ku xigsa marka la ku xigsa marka la ku xigsa tawo sareysa marka maacuna musayna rafiica midna midna waan qaadanaa ha midna toddobada samata ugu sareysa waxaa la yidhaahdaa ha midna go-aankaaga u dambeeya ha oo midna waa hagaag daawadayaal jawaabta su-aashaasi ayaynu eegi doonaa toddobada samata ugu sareysa waxaa la yidhaahdaa ha midna jawaabta su-aashu sidaasi ayay qalad ku tahay waa rafiica ta u sareysa aad iyo aad aan ugu saxaabiya nafsiga kulanti wanaagsan akhyaarta qiimaha badan ee hawada nagala socotaay hadda waxay la joogaa kulanti wanaagsan akhyaarta qiimaha badan kulanti wanaagsan daawadayaal barnaamijka Kismaal ayaan ku guda jirnaa hadda waxay la joogaa Khadar Cabdiraxmaan madaxa suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta ee Samtal kulanti wanaagsan Khadar ku soo dhaw barnaamijka inta ugu faraha badan la Khadar barnaamijka qofkana la wada tahay sanadada badan uu jirayna shirkadda marka laga yimaado dawlad dhaxaadka barnaamijkan inuu ka dhaqaaqay marka TV-ga iyo qaybta Samtal ayaa tahay ugu horreyn barnaamijka ku soo dhaweynaya inaan su'aalaha toos ugu bilaabay laakiin dad badan baa oranaya soo eegto iska deynaa iyaga hadii alla yiraahdo hadii la lacala aad garato hadii garan weydaan waxa oranaya kulay waxa ka siiye labada jeer bade halis baynu ku galinaa waan iska deynaa iyada hadii alla yiraahdo waxaan doonaya inaan ku weydiiyo Khadar barnaamijkan fara badan baan nala wadaa imka ilaa 10 runtii kor u dhaafo waqtiga u fara badan waa nala joogtaa oo adiga nala fadhiya qorshe ahaan barnaamijka inta aynu ugu talagalay si fiican buu socdaa barnaamijyada maalmaha dambe waxaanu ballan qaadnay in jaamacadda qaybaha ku jiraan filaya maxaa barnaamijka ku soo kordhinaa sidahay waynu ku kordhinaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn waxaan leeyahay Ramadaan Kariim dhammaan ummadda Islaamka iyo dadka Soomaaliya ku hadla meel kasta ay joogaanba iyo daawadayaasha intii nagala socota shaashada Somaliland National TV ama TV-ga qaranka Somaliland waxaan marka ugu horeysa u mahad celinayaa dhammaan badaadiyaasha barnaamijka Cabdirasaaq ka uu qiyahay Soomaaliya Roma iyo dhammaan tiimka hawsha wada aad iyo aad badan mahadsantihiin si wanaagsan ee quruxda badan ee runtii aad maalin walba barnaamijka isku hawshaan aad u diyaarisaan taa marka laga tago runtii barnaamijkan Kismaal waa barnaamij cilmiyeed shirkadda Somtal ay ugu tala gashay inay ugu faa'iideyso bulshada guud ahaanba waana barnaamij aan ugu tala galay in yar iyo weyn macni jiilka yar iyo jiilka waaweyn dadka bulshada qaybaheeda kala duwan in intaba runtii uu faa'iido badan siiyo dadka waaweyn waxay inta badan ka faa'iidaan waxyaalaha cilmiga iyo waxyaalaha diiniga iyo waxyaalaha hadda nolosha ku cusub amba adduunka ku cusub dadka yarna waxay ka faa'iidaan waxyaalaha dhaqanka iyagu aanay soo gaarin oo dhinacii miyiga iyo waxyaalaha runtii dhaqanka dhammaan runtii xogtaas bay qaataan marka waxaan oran karnaa waa barnaamij labada dhinacba ay faa'iido ka helaan waana barnaamij kulmiyay qaybaha kala duwan ee bulshada haday noqoto dad yar yar dad dhexe iyo dad waaweynba barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay su'aalo diiniya oo aynu ugu talagalnay inaynu dadkeena maadaama bulshada islaam aynu nahay inaynu ku dhiirigelino dhinaca diinta isla markaana aynu eegno inuu bal qiyaasnaalkeenu diinta ka taagannahay dhalinyaradu halkay ka taagan yihiin sidoo kale waa barnaamij aynu ugu talagalnay inay dadku ka faa'iideystaan dhinaca dhaqanka dhaqankuna runtii bulsho kastaaba dhaqan bay leedahay inagu dhaqan bay leedahay inaynu ku dhiirigelino dhaqankeena dhinaca kale waa barnaamij aynu ugu talagalnay inaynu ku dhiirigelino taariikhda dalkani leeyahay iyo taariikhda runtii adduunka oo dhan waxa cilmiga guud amba aqoonta guud loo yaqaano in bulshadu ay kala faa'iideysato isla markaana bulshadu ay wax badan halkan ka barato dadka halkan soo fadhiisanaya laftirkooda waxa ku jira dad wax badan laga baranayo oo iyaga laftirkooda laga yaabaa in xog badan oo inagu aynaan haynin ay bulshada u gudbiyaan sidoo kale su'aalahan waa su'aalo cilmiga guud runtii koobsaday barnaamijkan wuxuu socday hadda muddo 6 sanadood ah 2011 baynu soo bilownay intaas oo dhan si wanaagsan buu runtii u shaqeynayay waxaynu rajaynayaa insha Allah inuu sidaas ka sii wanaagsan uu sii shaqeyn doono barnaamijkan Kismaal waxaynu doonaynaa insha Allah waqtiyada soo socda inuu intan ka hor u maro wax badan aynu ku soo kordhino waxyaalaha hadda aynu rabno 10 dambe inaynu ku soo kordhino barnaamijka waxa kamid ah ardayda jaamacadaha oo doonayay iyaguna inay ka qayb noqdaan barnaamijka oo aynu ku dhiirigelino dhinaca aqoonta xoog ugu dhiirigelino iyo sidoo kale inaynu ka dhigi karno haddii inoo suurto gasho live aynu ka dhigi karno oo dadka social media ku xiran dhinaca Facebook iyo arrimahaasna iyaguna ay live mararka qaarkood uga soo qayb qaadan karaan barnaamijkii Kismaal oo toos soconaya iyaduna waxyaalaha doonayna insha Allah barnaamijkeena ku soo kordhino marka runtii barnaamijkan waa barnaamij qiimihiisu aad iyo aad u ballaaran wax koob iyo laba lagu soo koobi karo Cabdirasaaq runtii maaha aan uga mahadcelin cid kastoo talooyinka ugu faraha badan inoo imanay wax kamid ah inaynu bal
على الأقل سؤالها سات المنطقة هو سؤالين مدة من كفاية ست دونية تذكر قاربا مودي سؤالين وقت كين السنة العقد 6 مليون يوسف قرودو العقد 6 مليون شركة دين وجهدو لكن المهم كلا تبين واحد 8 سؤالات وقت بدن بيقاتين وأنا يرى دقيق إن قيمها العقيدة تمن كسؤالات أنه قاضنا إنه لو كردية بقى هدي بقى إلى 6 مليون تتكجارية أي هذا إنه كردينه تمن كالعقد فرق بدن لقد دقيقة هذا قرشة runtii waa su-aal wanaagsan su-aalaha maynaad keenin oo ugumaynaan talagelin macnihi inaan la guulaysan waxaynu ugu talagalnay maalin kasta in la guulaysto waayo bisha u dambaysa wadarkiisa waa la guulaystay daraad amba khamiis iyo jimcihii khamiisii laba qof runtii dad badan baa guulaystay marka macnaheedu ma aha inaynu doonay inaan la guulaysan laakiin macnaheedu waxa wixii haddii la jilciyo dee dadkii ma kala baxayaan waxaan maadaama waa iska imtixaan oo kale amba waxa weeye in dadkii la kala saaro marka dadkii aqoontoodii garashadoodii caqligoodii si ay u kala baxaan oo dadka intii dee u qalanta oo ay u guulaysato baynu ugu talagalnay barnaamij in su'aaluhu noqdaan su'aalo dhexdhexaad marka haddaad u fiirsatay su'aaluhu waxay ka kooban yihiin su'aalaha hore waa su'aalo iska jilicsan oo qofka waxa laga yaabaa in la weydiiyo Soomaaliland goorma lagu dhawaaqay 1999 qof walba uu garanaya marka su'aaluhu mar kasta qofka kor u sii socdo way sii adkaanayaan taas waa sababta lagu kala hadlayo in uu guulaysanayo in aanu guulaysan in qadar bisha Ramadaan ba hadda laatankii dambe lagu jireeyo xaqii tobankii dambe loo socdaa هذه يشير ناس بدل بقى كشركات سمين شتين وضد خبايا ولا بلنقاجة سنة كم حال يدي وعصبة سلالة وسؤال هذا أدو ناكسن إن سنة كانوا حيالا بدن بأنه برشة وصوب بدقني لما بما عميش كحنا شركة صمتل عن وقت الله قال لي بشعر بدأني كيف فايدستان وحكي من البرامج اللي راح هذا الله حلو هذا الله حلو دق وحبرشة موبيل عصرية وبرامج حلقة كل دكسن سينو أركينو حلقة نوكو دوسين حلقة نوكو دوسين ودوس كهذه هاي كوكولستان وبرامج أي نوكو تلا قال لي إنه كل يريق لنا أقوانت يرنتي جامعة هاي وحبرشة وأنا برامج أيدونه دلني يردو مادام وشغلان بدنا يشرتوا عن بدت كواد مارك تيجين برشة غالي هو سيو تد بدنا يمركو صورتك الويدين جامعة هي قلنا دلني ربنا يتعريبسو أي نوكو تلا قال لي إنه ضد وحبرتة دالي أي كل يريق لنا إسلام مركانا أي جامعة صمتل سفري وبلاش أو بحسن برامج كانوا runtii barnaamij qiimo badan sidoo kale waxaan ku bixinaa barnaamijka hadal hel qaybtiisa kale moobil casri ah waa moobilo nooc u dambeeyay ah oo runtii xitaa 4G qofku uu ku isticmaali karayo 4G support garanay in kuwaasna ilaa 9 moobil baynu ugu talagalnay barnaamij ku bixino jaamacadaha ilaa 8 baynu doonaa qof inaynu ka bixino hadii alla ka dhigo barnaamijka waxa kaliya oo qofka macmiilka ka xigta wax shardi kuma xidhna waxa ku xiran qofku inuu yahay macmiil Somtel oo uu sito kaarka Somtel isla markaana uu ku hadlo wax kale looga baahan yahay ma jirto marka qof kasta oo macmiil Somtel oo sita kaarka Somtel isla markaana ku hadla wuxuu chance u helayaa inuu barnaamijka scholarshipka jaamacada uu ka qayb qaato moobilada casriga ah ee 4G support garan uu ka qayb qaato oo barnaamij faa'iido leh dhinaca kale intaas oo kaliya tamaahe Somtel waxay ugu tala gashay macaamiisheeda bishan barakeysan Ramadaan in 4G ga laftirkiisa oo ah adeeg nagu cusub oo waliba caalamka iyo geeska Afrika ba ku cusub oo Somtel ay tahay shirkadii koowaad ama shirkadii u horeysay geeska Afrika ba keento waxaan la yiraahdaa 4G oo waliba imaka aynu haddana keenay qaybtii labaad 4G plus oo 4G ga qaybtii u dambeysay in amba maxaan ku raahdaayay hadda intii ugu casrisanayd waxaynu u sameynay qiimo dhimis ah 50% marka hadda macaamiisha waxaan ugu bishaareynaa bisha Ramadaan fadliga bisha Ramadaan awgeed inay ka faa'iideystaan qiimo dhimista ah 50% halku markii hore 4G ka ahaan jiray $100 hadda macaamiisha waxaan uga dhignay $50 taasna mid weyn insha Allah bisha Ramadaan macaamiisha inay ka faa'iideystaan waxayna ka heli karaan dhammaan xarumaha shirkadda Somtel haday noqoto Hargeysa haday noqoto goboladaba xarumo dhan bay ka heli karaan waana iyaduna qiimo dhimis kale iyo bishaare kale oo aanu macaamiisha bisha Ramadaan ugu talagalnay intaas oo kaliya tama Cabdirasaaq ugu daray bisha Ramadaan maadaama oo bil Ramadaan ay tahay dhalinyaradu runtii inta badan waxay sameeyaan sport amba ciyaaray sameeyaan ciyaarahaas oo runtii dhinacna dadka midadaalo uga dhinacna dhalinyarada uga dhiirigelin Somtel waxay dhigtay sanadkan aba bisha Ramadaan koob la yiraahdo Somtel 4G plus koobkaas wuxuu ka socdaa Hargeysa gaar ahaan garoonka shacabka ee Oday Stadium oo ay dhowr iyo 20 kooxood oo waliba kooxihii waaweynaaye hore ay ka qayb galayaan runtii taasna mid aan ugu talagalnay inaan ku dhiirigelino bisha Ramadaan iyo dhalinyarada aad baa maasatahay aad lagu saaciday khadaan aad iyo aad wagaag daawada kulanti wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha saddexaad ee barnaamijka waa Salmaan Xasan Bulbul الله صاحبي سلمان حسن السلام عليكم سلمان حسن بلبل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسو دو برنامج كسمال كل عبد السلام سلمان واحد تفاصيل قصة إن أرض هاي الكاد دقنت هاي أنا يدا ولا شاور بحين حين نسيكرت marka hore magacaygu waa Salmaan Xasan Bulbul waxaan ku noolahay degmada Gacan Libaax waxaan arday ku jira secondary-ga sare Nuurdiin
ما شاء الله سلمان برنامج كان هرو دعوتي إيه كذا هاي بدون تعود لي حس إنه سعني هو تعود سيارك سامك برنامج كان سواء برنامج أقوم كورسيا wax badan oo aanan dee 6 sano ka hor aqoon baan imka bartay oo ta xaggan dhaqanka iyo waxyaabo badan oo xataa guriga iska yeelay oo aan dee magacyo kala waaqan ay imka magacyada sabartay سلمان واحد أبغى حسناتين لما شهر dadku kuna caawin doona laba jeerna mid laba laga saari doona waana ku bilaabi doonaa bismillaah su'aasha kooban su-aasha koowaad waxay ku oranaysaa salmaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu dhalay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu dhalay ba 4 caruura ta 5 caruura ja 6 caruur ah xa 7 caruura bismillaah tan jawaabta su-aashaasi isku dayo waa xa oo 7 caruur xa oo 7 caruura dadweynihiina laba ka tuuranay noorsi axmed oo hubta waa hagaag daawadayaal xa oo 7 caruur ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee haweenaydii naaska nuujisay waxay ahayd nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam haweenaydii naaska nuujisay waxay ahayd ba xaliimo sahra ta khadiija ja xaliimatu sacdiya xa umu salma bismillaah tan jawaabta su-aashaasi isku dayo waa jaa xaliimatu sacdiya ja oo xaliimatu sacdiya ku adkaysanaysaa aan ku adkaysan waa hagaag daawadayaal ja oo xaliimatu sacdiya jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay 3 xilliga gugu waxa uu ka kooban yahay xilliga gugu waxa uu ka kooban yahay ba bil ta 2 bilood ja 3 bilood xa 4 bilood bismillaah jawaabta su-aashaasi waa jaa oo 3 bilood ja oo 3 bilooda weli dadweyneyna laba ka tuuraanayno harsan yihiin aywa waad ka seesaa waa hagaag daawadayaal ja oo 3 bilood ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha afraad geelu marka uu jeelo waxa la siiyaa geelu marka uu jeelo waxa la siiyaa ba caws ta milix ja biyo xa dawo jawaabtaasi waa ta cabdirsaaq oo milaxa ta oo milixa weli dadweynena laba kaa turanayno harsan yihin waad ka seesa waa hagaag daawayaal ta oo milixa ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay yaa salmaan 5 baynu madanaa suuradda qofka akhriya u shafaaco qaadaysaa waa suuradda qofka akhriya u shafaaco qaadaysa ama cadaabu qabri aanu lahayn waa ba suuratu mulki ta suuratu lcama ja suuratu lfajri xa suuratu lcasri bismillaah jawaabta su-aashaasi haddaan isku dayo waa ba oo suuratu mulki ba oo suuratu mulki ama tabaariga ku adkaysanaysa 5 baynu maranaa weli dadweynena noo harsanyihiin laba kaa tur ba oo suuratu mulki ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay waliya salmaan meel xasaasiyaynu soo gaadhnay 6 baynu maranaa calankan waxa leh wadanka calankan waxa leh wadanka ba bosnia ta bangaladesh ja bulgaria xa baxrayn bismillaah tan jawaabta su-aashan isku dayo waa xawa baxrayna xa oo baxrayna dadweynihii iyana laba kaa tuuraan welienu arsay xa oo baxrayna ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay wariya salmaan bulbul su-aasha 7aad waxay ku odhanaysaa weelka cusub ee ay soomaalidu samaysan jirtay waxaa loo yaqaanay weelka cusub ee ay soomaalidu samaysan jirtay waxaa loo yaqaanay ba tolan ta qabo ja jilay xa gocay jawaabta su-aashaasi waa ta oo qabaa jawaabta su-aashu waa qabo ta ta oo qabaa weelka cusub weelka cusub Ah. soomaalida hore soomaalida waa ha samaysan jirtay waa qabo waa gabadhan aada ugu fiirso
aan laba kaa tuuro iyo dadweyne waynu arsiinsaa si xaqiijino 50-50 kale laba ka mida ayaa kaa saari doona ta oo qabaa iyo xa oo gocaya isku saare waa soo qabaa ta oo qabaa iyo xa oo gocaya isku saare maxaa gocayo weeyaan xa oo gocaya ah go-aankaaga u dambeeya waa waa hagaag daawadayaal xa oo gocayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay salmaan 8 ayaynu soo gaarnay asxaabigii isagoo qur-aanka akhriyaya malaa'igta arkay waxa uu ahaa asxaabigii isagoo qur-aanka akhriyaya malaa'igta arkay waxa uu ahaa ba cismaan binu cafaan ta usayd ibnu xudayr ja sacad binu abi waqaas xa cumar binu khadaab jawaabta su-aashaasi waa sacad bin abi waqaas ja oo sacad binu abi waqaasa 8 baynu maranaa meel xasaasiya weli dadweynihii oo 2 jeera iyo hal mar wayna mid laba kaa tuuraan inoo ahrisa waa usayd bin xudayr codka kor u qaad usayd bin xudayr usayd binu xudayr ah ku adkaysanaysa ah waa hagaag daawadayaal ta oo usayd binu xudayr jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay 9 ereyga dhabcaal waxa la mid ah 4 erey ereyga dhabcaal waxa la mid ah 4 erey ba gaaruf ta gadaac ja gojoobe xa gocor way jawaabta dinaa digna dadweynaha waa hagaag daawadayaal waxaanu maraynaa 9 meel xasaasiyaan taaganahay aada uga fiirsada dabcan weydiintu waxayd odhanaysaa ereyga dhabcaal waxa la mid ah ereyga dhabcaal waxa la mid ah ba gaaruf ta gadac ja goojabe xa gocor imise qof ayaa le waa ba oo waa gaaruf imise qof ayaa le waa ta oo waa gadac imise qof ayaa le waa ja goojabe imise qof ayaa le waa xa oo waa gocor waagaan isku soo noqono badi dadkaasi waxay nagu yidhaahdeen waa xa oo waa gocor ilaa 14 qof baa inagu yidhi 2 qofoo ka midna waa gorof bay nagu yidhaahdeen goojabana 3 qof baa inagu yidhi waxaa ba oo gaarufa ba oo gaarufa 2 qof baa inagu yidhi badi dadkaasi laakiin waa xa bay inagu yidhaahdeen gocoru malay maynaysi gocor gocaru malaynaymaysa markaa 2 ka mida ma ku tuurnaa si aynu u hubino maxaa ku turan 2 ka midana waan kaa saari doonaa meel xasaasiyana maranaa taadu malinaysa ku daysay xa baa weli taagan oo badi dadku maxaad ku taa gocor ay nagu ilaadan weyta gocorkaa ku taa haddii 11kaas qof inay qaldaan maxaan ka yeelnaa waa markii horeba diiga khaladka ma ahayna xasan saxay intay garanayn bay dhaaftay hadday 11ka qof ina saxaan aad bii maasay aad ba mahadsan waa hagaag daawadayaal xa'da ayaynu wadeegi doonaa gocor jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay mar kalena 11kan qof sacabka loo sumo 10 ayaynu soo gaarnay salmaan 10 ayaynu soo gaarnay
sanadka soomaalidu tirsato bilaha la yidhaahdo bil dhuro tiradoodu waa sanadka soomaalidu tirsato bilaha la yidhaahdo bil dhuro tiradoodu waa ba hal bil ta 2 bilood ja 3 bilood xa 4 bilood ta oo 2 bilooda ta oo 2 bilooda meel xasaasiyaynu marnaa hal maroo dadweynuhuna waa inoo hadheen su-aashana waa 250,000 oo shilinka somalilan dadweynaanu dhibna si ay noola xaqiijiyaan waa hagaag daawadayaal aniga iyo salmaan xasan meel xasaasiyaan marnaa su-aashu waxayda odhanaysaa sanadka soomaalidu tirsata bilaha la yidhaahdo bil dhuro tiradoodu waa sanadka soomaalidu tirsato bilaha la yidhaahdo bil dhuro tiradoodu waa ba hal bil ta 2 bil ja 3 bilood xa 4 bilood imise qof ayaa le waa ba oo waa hal bil imise qof ayaa le waa ta oo waa 2 bilood aada ugu fiirso imise qof ayaa le waa ja oo waa 3 bilood imise qof ayaa le waa xa oo waa 4 bilood aan dib isugu soo noqono yaa salmaan badi dadkaasi waxay nagu yidhaahdeen waa ta oo waa 2 bilood adiguna hore waa 2 bilood baad igu tiri inay kugu raaceen iyo in kale garad mayno hase yeeshee su-aashani waa 250,000 oo shilinka somalilan waa su-aal lacaga in maskaxda aada loo tuujiyo waan ku ballaminay iyaga adiguna inaad aada u tuujiso waa muhiim inaad ku raacayso inaad mid kale dooranayso in arrinkoodaasi uu soo jeedin yahay cabdirasaaq haddii waxaasoo dhan intay gacanta la taageen kulaytee aqoon buu leeyahay balmaadeen markaa taadaynu ku raacnaa taadan ku raacayso 2 jeeroo barnaamijkan ka horreeya mar bay gacanta noo taagano 2 jeerba waa joogay waad joogto way naqaldeen calaa ayati xaal 10 baynu taagannahay kolley mar haddaanad waxaan garanayn ku qabsan kari maysid oranaysid baad khaldantahay ood khaldan haddiiba ayna saxaan ka soo qaad oo ay sax noqoto maxaynu ka yeelnaa toban horta rabadaanaha galo la jecel yahay inu ducayna haddii ayna qaldaanna haddiina khaldana inu habaarna nima habaar 2 jeer baanu ducayna 2 jeer si ka silma waa nin wanaagsan weeye salmaano sanadka soomaalidu tirsata bilaha la yidhaahdo bil dhuro tiradoodu waa ta oo 2 ah waynu ku raacnaa ku raacaya su-aashani waa 250,000 oo shilinka somalilanna anigiyo salmaan dadweynaha ayaan weydiinay dadweynuhuna waxay nagu yidhaahdeen waa 2 bilood kadibna go-aan waxaan ku gaadhnay inaanu ku raacno jawaabta su-aashaasoo xasaasiyey waa qalad ama sax sax ama qalad ama sax ama qalad jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay yaa salmaan wayna caawiyeen calaa ayati xaal aad buu mahadsan yihin salmaan xasan bulbul aad iyo aad baan kugu hambalyeynaa sacabkaa loo garaco aad iyo aad baan hambalya ku leenahay eed noqotay tartamihii 6aad ee dabcan barnaamijka kasmaan intii u socday ku guulaystay 250,000 oo shilinka somalilan aadan lagu sacbiyo inaad barnaamijka sii wadanaysid iyo inaynu intaa qolo kalena kaa dambaysaayeen de maaragtay
ay go-aanku adiga wey waan sii wadan cabsaha sii wadan aad loogu sacabiyo waa sii wadanaya Salmaan wareegga labaad ayaynu gudbi doonaa ee 750,000 ee shilinka Soomaaliland su-aasha 11 su-aasha 11 waxay ku odhanaysaa idaacadda raadiyo Hargeysa waxa la furay idaacadda raadiyo Hargeysa waxa la furay ba sanadkii 1911 ta 1920 ja 1930 xa 1940 raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland halka imka laga dhageysanayo dabcan haddaan jawaabta su-aashaasi isku dayo kolle way la tahay waa xa oo 1940 codka kor u qaad 1940 xa oo 1940 dadweynaha way naga dhamaadeen laba kala turaan way naga dhamaatay waa hagaag xa oo 1940 jawaabta su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaas ayay sax ku tahay su-aasha 12 su-aasha 12 waxay ku odhanaysaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku taala intii aan islaamku qabsan waxa loo oran jiray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku taala intii aanu islaamku qabsan waxa loo oran jiray ba Kufa ta Qustantiniya ja Ankara xa Beirut haddaan jawaabta su-aashaasi isku dayo waa ba Kufa ba oo Kufa ku adkaysanaysaa aan ku adkaysan intii aanu islaamku qabsan ka hor waa hagaag daawadayaal ba oo Kufa ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay qalad ku tahay waa ta oo Qustantiniya aada lagu sacabiyo wagaag daawadayaal waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha afraad ee barnaamijka waa Ridwaan Xasan Yuusuf loo sacabiyo السلام عليكم رضوان حسن يوسف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسر دو برنامج كسبان وندوي عبد السلام عليكم رضوان واحد تفاصيل قصة إن الأرض تهاي إن الديار هول كلا يصير نجدا ولا شباب معلومات أنت نسيترت أدي أضل ما سنترت عبد السلام waxaan dhigtaa arday baan ahay waxaan dhigtaa jaamacadda Arms University especially faculty of accounting waxaan deganahay xaafadda idaacadda accounting dhigataa maxaad ku dooratay markaan accounting baratay iyo horta cabsaaq waxyaabo badan baa jira oo ku doortay su'aashaad weydiisay horta marka koowaad waxay hobbigaygii ilaa iyo markaan yar aan ku hayn jiray markaan ahaa primary-ga ayaan hobbigii aan ku hayay ahayd oo waxaan ku haymi jiray markasta teeda labaad dhinac kale kaegno waxaan ku doortay sida ogtahay waxa iska badan corruption-ka dhinaca waddankeena si bal aan wax ugu qabto haddii insha Allah ilaahay ugu saacido oo ka mid noqdo dadka aqoonsatada ugu sareeya waddanka insha Allah Ridwaan markaad eegto review iyo waxbaa lagu xisaabtamaa dadka accounting iska gacan adag baa leeyahay faniyugi iyo qaybta lagu xisaabtamaya marka baasha account-kana oo gacan adag baa leeyahay ka waran ilaan dakhli shilin baa xisaabinayna halka hadii laga saaro ingiriisi waxba hoos u dhacba imanaya kor u kacba imanaya cabsaaq horta waa qaacido qadan taasi anigu ma aaminsani waxa uu bala saxaya Soomaalidu waa tiraahdaa xisaab xilmi aad la xumay marka inaan la xumayno baa doonaysaa aad baa ku soo dhawaad Ridwaan barnaamijka daawatiye kale barnaamijka waa daawata waxaad aad u xasuunataa laba jeer min laba ka turjano laba jeerna doonina caawin doona bismillaah waa ku bilaabi doona su'aasha koobaad waxay ku odhanaysaa xilliga colaadu socoto dadka aan wax la yeelin ee la dhaafo ama la daayo waxa loo yaqaanaa xilliga colaadu socoto dadka aan wax la yeelin ee la dhaafo ama la daayo waxa loo yaqaanaa ba bukaan ta birimageydo ja qoxoonti xa waayeel bismillaah cabsaaqo su'aasheeda jawaabteeda taas ku dayo waa taada oo birimageyda ta oo birimageyda ku adkaysanaysaa waa hagaag daawadayaal ta oo birimageyda ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa suugaanta aan isku xarafka ka socon ee lagu mahadsado waxa loo yaqaanaa
suugaanta aan isku xarafka ka socon ee lagu mahadsado waxaa loo yaqaanaa ba maayo, ta salsal, ja dhaanto, xa jacbur. بسم الله سؤال جاوبتي هذا عم ساق صديو وشعبر xa oo jacbura laba jeeroo dadweyne iyo laba jeeroo min laba kaa turan inuu arsayn ku adkaysanaysaa marka waa jacbur isugu egeen inaba mid jacbura ma maqashayo يا ورت واحد مغلي تلون الشاعر يا كم مغلي تلقوا قال سوى شعبر وكله وقتها laakiin ereye jacbura maynaan waa hagaag xa oo jacbura ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaas ayay sax ku tahay su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa nebigii ay cagihiisa biyaha samsamku ka dilaaceen waa nebigii ay cagihiisa biyaha samsamka ay ka dilaaceen waa ba nebi ciise calayhi salaam, ta nebi yuusuf calayhi salaam, ja nebi ismaaciil calayhi salaam, xa nebi muuse calayhi salaam. بسم الله عبساق جوابته سؤال جاوبتي هذا صديو وجاء ونبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام ja nebi ismaaciil calayhi salaam laba jeero dadweyniye laba jeerona min laba kaa tuuraanona harsay waa hagaag daawadayaal ja oo nebi ismaaciil ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha afaraad waxay ku odhanaysaa jaamacadda nuugaal waxay ku taallaa gobolka ba sool, ta togdheer, ja maroodi jeex, xa awdal. jaamacadda nuugaal maad maqalba inaan laba kaa tuuro iyo laba jeero dadweynena na harsayn ba oo soolaad ku adkaysanaysa waa hagaag daawadayaal ba oo gobolka sool ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha shanaad bisha xagaaga ugu horeysaa waa ba karan, ta waran, ja weer, xa samaalaho. dadweynaha shan ayaan maraynaa waxaan doonayaa inaad macaawisaan aniga iyo ridwaan su-aashuna waxay idin odhanaysaa bisha xagaaga ugu horeysaa waa ba karan, ta waran, ja weer, xa samaalaho. imise qof ayaa le waa ba oo waa karan, imise qof ayaa le waa ta oo waa waran, imise qof ayaa le waa ja oo waa weer, imise qof ayaa le waa xa oo waa samaalaho. aan isku soo noqono ridwaan badi dadkaasi war ka aamuseen xaasidnimo kama aha laakiin ilaa 6 qof baa inagu yidhi waa xa oo waa samaalaho. inaan ku raacno iyoynunu والله هدينا نقرني هنا كرة عنا وقرح بدن هدينا ويجي ويدارنا يجي قرطانا وين قبسنا دونا ما ملاهي marka waynu ku raacno haddaynu laba ka tuurno kusii xaqiijinana waa inaynu ku raacno hadday markaa ayna qaldaana intay garanayeen bay dhaafto haddayna saxaana maasay bisha xagaaga ugu horeysaa waa xa samaalaho ku adkaysanaysa waa xagaag daawadayaal aniga iyo ridwaan dadweynahaas ayaan weydiinay dadweynihina waxay nagu yidhaahdeen waa xa oo waa samaalaho waanaguna waan ku raacnay jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay aad ba mahadsanyihin su-aasha lixaad waxay ku odhanaysaa hogaamiyihii ugu horeeyey ee cismaaniyiinta xukumaa waxa uu ahaa ba maxamed alfaatax, ta muscab ibnu cumayr, ja cismaan binu ardafal, xa midna codka kor u qaadadaan laba ka mida ayaa kaa saari doona
waxaa isku soo haray ja cismaan binu ardafal iyo xa oo ah midna saaqow su-aasha joogteeda haddaan isku dayo waa xa oo midnaba xa oo midnaba aada ugu fiirso ja oo cismaan binu ardafal iyo xa oo ah midna go-aan ka gaarta go-aan midnaba xa oo midnaba go-aankaaga u dambeeya jaada ba ka dhiga soo manaardo go-aankaaga u dambeeyay ja oo cismaan binu ardafala ku adkaysanaysaa waa hagaag daawadayaal ja cismaan binu ardafal jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay toddoba ayaynu soo gaarnay su-aasha toddobaad waxay ku odhanaysaa hogaamiyihii islaamka gaadhsiiyey bosniya waa hogaamiyihii islaamka gaadhsiiyey bosniya waa ba maxamed alfaatix ta haaruun alrashiid ja salaaxuddiin alayuubi xa ibnu ardafal dadweynahan xabaddaa u dhiibayna haddii la idhaaho aniga iyo ridwaan toddoba ayaan marana waxaan doonay inaad naga caawisaan su-aashan annagoo idiga mahad celina markii hore sidaad noo caawiseen su-aashu waxay odhanaysaa hogaamiyihii islaamka gaadhsiiyey bosniya waxa uu ahaa ba maxamed alfaatix ta haaruun alrashiid ja salaaxuddiin alayuubi xa ibnu ardafal imise qof ayaale waxa uu ahaa ba maxamed alfaatix imise qof ayaale ta waxa uu ahaa haaruun alrashiid imise qof ayaale ja waxa uu ahaa salaaxuddiin alayuubi imise qof ayaale xa waxa uu ahaa binu ardafal waagaag aada ba mahadsantihiin ridwaan badi dadkaasi waxay nagu yidhaahdeen xa oo ah binu ardafal cismaan binu ardafal waan ka aamusay inta kale o dhanna intay garanayn bay dhaaftay marka inaan ku raacnay iyo in kale insha allah markii hore say noo saxeen ma filayna inay noo saxaan saaqooda binu ardafalkaas ku raacin xaalin binu ardafal ridwaan dadweynahaasi waxay nagu yidhaahdeen binu ardafal waktiguna waa inaga dhacay dadweynahan ka fara badan baa jira aada uga fara badan hal maru bay u kaadhsanayaan laba kaa tuuraa haddii alla yidhaahdo dadweynaha la soo tasho maalinta berita haddii alla yidhaahdo barnaamijkan ka xiga isla halkaasaynu ka bilaabaynaa hadday dadweynaha kale ku raacaan oo binu ardafal u noqdana aada ba mahadsanyiinta inay la joogto haddii kalena waad soo baadhisaa halkaasaynu berita kasii bilaabayna dalar aada iyo aada loogu sacabiyo waa hagaag daawadayaal maalinta berita ayaynu haddii alla yidhahdo ka qayb qaataa barnaamijka kan xiga halkaasi uga sii bilaabi doonaa isla xilligan oo kalunba haddii alla yidhaahdo markaasi daawan doontaan hase yeeshee hadda waxaan usoo gudbi doonaa waktigii aan guryihiina meheradihiina goob kastoo aad joogtaan dabcan aan weydiinta warcelinta aad ku sameynaysaan aan idinsoo weydiin jirnay weydiinta barnaamijkan intaan idinsoo weydiinta ka horreysay waxay ahayd asalka galoolka waxaa loo yaqaan asalka galoolka waxaa loo yaqaanaa ba hogeysta tayja ramoogxa asal waxa ay sax ku ahayd in loo yaqaano ta oo markaasi ah tay waxay sax ku tahay ta oo markaasi ah tay waa hagaag daawadayaal dadweynahaasi kusoo guulaystay dabcan ee markaasi ku sameeyey warcelinta waxaa nasiib u yeeshay in ay markaasi fursaddaasi ay helaan oo kadibna dadka tirada badan ay kasoo jawaabeen aada uga mahad celinayna uu nasiib u yeeshay inuu helo qofka lambarkiisa markaasi uu yahay 93281 oo magaciisuna uu yahay ubax yuusuf cige dabcan ubax yuusuf cige waxa ay joogtaa siday sheegeen farsamo yaqaanada barnaamijku iyo soo saarayaashu magaalada burca xarunta gobolka togdheer dabcan markaasi waxa ay abaalmarintaasi loogu talagalay ka qaadan doontaa magaalada burco xarunta gobolka togdheer oo shirkadda isgaarsiinta ee samtala waa la soo hadli doontaa kadibna abaalmarinteeda waxaa lagu guddoonsiin doonaa isla magaaladaasi burco hambali aanan leenahay dadweynaha tirada badan ee dabcan kasoo jawaabay iyagana waqtigooda aad baan uga mahadcelina waxu diyaargaroodaa weydiinta aan habeenkan caawa idisoo weydiina meel kastoo aad joogtaan ereyga barofesor waa af ingiriisi marka uu af soomaali yahayna waa ereyga
بروفيسور وأف إنجليزي مركا وأف سومالي هينا با بوني تا إندير جرد شا باشي ح جدع مركا للدعوة ديالنا كو عليو سؤال شو واحد ورنسا إريغا بروفيسور وأف إنجليزي مركا وأف سومالي هينا با بوني تا إندير جرد شا باشي ح جدع وهاجاك داود يال إن دود فانتين أيام في اليوم والعلنت السحرة وحد كوسو ديري دونتان لمبركا جابن سيدات لبا با تا شا ح كي صح كتاي أيضا لمبركا سي جابن كوسو ديري دونتان ملك استوى شوكتان وحا الرجال يعني كوسو شوابي دونتان وحنا نادو ما قلنا يا خيارتي يقولوا السجن استوديو تلفزيون كقرن كسومال لان أو برنامج كان قريب كا لابد شير أو كميدنا وقت جود وقف كستعاون يا أنت أم برنامج كان كحجي سوقي من دونه ملك استوى شوكتان وحنا نادو ما قلنا يا خيارتي البرنامج كان قريب قاتي إن برنامج كان لمن يسكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تليفون صحو مقال صافيو أسألوا بلاهي صوتين بشوي وهدك